أصحابته هل كان شوجا ومجال أنترناريفو عاصمة دلك مدغشقر هل كان واحد شوجا odaygan oo lagu magacaabo Daahir Saciid Daahir waa Soomaali waa reer Berbera 85 sano ayuu ku nool yahay magaalada caasimadda Madagascar Antananarivo Daahir xalay baan kulanay maanta aniga barnaamijka ka sameynaya si fiican baan u sheekaysanay kugu reer Berbera ayaan ahay Daahir aabihii ayaa halkan 85 sano ka hor oo ahaa ciidamadii Faransiisku ka keenay dalka Djibouti si ay halkan uga dagaalamaan waqtigaas Daahir soo dhawow Bienvenue Daahir sur l'émission. Ouais. Bienvenue sur l'émission, il vous dit. Ouais. Daahir Soomaali kuma hadli karayo wuxuu ku hadlaa labada luqadood ee halkan laga isticmaalo luqadda Madagascar iyo luqadda labaad ee dalkan oo ah Faransiis. Faransiiskana waxaan ka aqaanaa hal kelmad oo ah merci. C'est tout ce que je connais dans la langue française. Daahir oo nolol kala turjumaya. Daahir bal maxaad ka xasuusataa hadalladii iyo waxa weeye waqtigii aad soo wada qaateen aabbo oo Soomaali ah wuxuu kaga sheegay Soomaalida iyo halku ku noolaa. OK, il vous pose la question c'est quoi votre comment dire vous vous rappelez de quoi sur votre père et le temps que vous avez pris ensemble? Abahay Soomaali waa. Abahay Soomaali waa buu dhahay. Berbera ka yimid. Berbera nu ka yimid. Il est commissaire à Madagascar, à Weimar. OK, halkan wuxuu ka ahaa askari buu ka ahaa. Aabihii halkan askari buu ka ahaa. Ayuu ka noqday. Il a fait son travail comme commerçant. Shaqadiisuna waxay ahayd ganacsi. Oo dhinac uu ka watay. Ilaa laga gaariyay geeridiisa. Il est mort en 4 décembre 81. Wuxuu dhintay 4 bisha December 1980. waxaana lagu aasay buu yiri magaalada inuu ka yimid Weimar baa lagu aasay magaalo kale oo ka tirsan dalka Madagascar oo ku dhashay ku dhashay Daahir quand il est malade mon grand-père a dit si tu veux aller entrer chez vous à Berbera je peux t'amener jusqu'à Berbera mais il a refusé maalmihii geeridiisu soo dhawaatay comme il a des enfants à Madagascar par rapport à Djibouti il a refusé de rentrer à Berbera maalmihii geeridiisu soo dhawaatay ayuu inankii ugu weynaa ee uu ku curtay aabihii uu weydiiyey aabo halkan maynu kugu aasnaa hadday taadii ay noqoto mise berberan kugu celinaa yaa markaasuu uu yidhi maya halkan igu aasa yaa haddana saasoo tahay buu yidhi ubad kale ayuu Djibouti kaga yimid oo halka iyaguna halkaa joogo waa tahay Daahir waxaad ka warantaa ma jecel yahay marna inuu ku noqdo Berbera iyo halkii deegaanka Est-ce que vous aimeriez retourner à Barbara un de ces jours? Si à la vie haddii la yidhaaho hadduu ilaahay weli ma la kulantay dad Soomaali reer Berbera inuu misku aragtay Madagascar? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui provenant de Barbara, des Somaliens? Wala kulun. intii halkan aad joogtay maxaad qabanaysaa Daahir shaqooyinka ka shaqeyn tartan maxaa? Qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous étiez ici? Vous pouvez même lui dire que vous étiez en Russie. moi j'ai fait mes études à Moscou. waxaan anu ka soo retourné à Madagascar j'ai travaillé une année seulement dans le gouvernement malgache et j'ai quitté. wuxuu yiri waxaan ka soo dhigtay anigu jaamacadaydii Moscow Ruushka halkaas 10 sano joogay kadib markaan soo laabtayna halkan waxaan u shaqeeyay buu rugta ganacsiga ayuu shaqeyn jiray Daahir kadibna wuxuu waan ka fariistay halkaas sanad kaliya ka shaqeeyay buu retirement kuma gelin waan ka fariistay buu isaga iskiiskii waa tahay Daahir waxaad ku tiraahdaa Soomaalida ku daawanaysa ee ka daawanaysa guud ahaan daafaha caalamka ma jirta hal iyo laba kelmadood oo uga sheegi karto dalkan Madagascar? Est-ce qu'il y a quelques mots vous pouviez dire aux Somaliens qui vous regardent sur l'émission? Moi je connais aucun mot. C'est pas en somalien, même en français tu peux leur souhaiter quelque chose. Vous. Pour moi, je vous souhaite une bonne. Comme cette année c'est le départage de Somaliland, c'était le 18 mai. بعدما هيد بوري ان 18 ماجي دوان وها waxaan u rajaynayaa buu leeyahay dalka Soomaaliland iyo dadka daafaca caalamka Je vous souhaite avec mon cœur.
ها قلبي فرن بان halkaa ka jecesha daahir wuxuu yidhi cid kasta oo ay daawanayso Soomaaliya gaar ahaan dadka reer Berbera iyo dadka reer Somaliland qalbigan ka jecelay buu maadaama anigu halkaa Kenya abaayna halkaa ku dhashay daahir waxa sidoo kale uu noo sheegay inuu haysto waraaqa aabihii uu la wadaagay oo wax inuu reer Berbera ahaa halkaa carruur kale oo Soomaaliya iyaguna ay walaalihiin oo Djibouti iyaguna haatan ku nool buu daahir noo sheegay waxa sidoo kale daahir noo sheegay inuu jecel yahay inuu mar haddii Ilaahay yiraahdo uu awoodo inuu dib ugu noqdo deegaankii uu ka yimi iyo Berbera oo aad u jecel yahay daahir waxaan ku arkay telefoonkaaga haddeer markaad i tusaysay muuqaalo ah halku ku aasnaa Sheekh Isxaaq Berbera Ouais, sur votre téléphone, récemment j'ai vu, je vous dis là, des vidéos et des photos là. Là où Cheikh Isxaaq est enterré, عجيب يا والله عجيب دل كستو تكتو حد واحد كواك ساحيا بك هيا بيا أصحابته عن توصل كله وي سيارتها سيارة هالكاس يقول لك أبي بس سيارة جري أصحابته إيه هالكم حكوا قرن أو ظاهر دعوة قبر الشيخ إسحاق يو أوبد كيسة هالكم حكوا قرن سيدا كله أو دعوة ظاهر قبره الشيخ إسحاق ayuu daawaday saaxiibkii qays qaystar baa halkaa ka soo muuqday waan aad iyo aad u salaamin waxa halkan uu ku haystaa daahir muuqaalo kala duwan oo afka Soomaaliga ku baxay runtii Soomaali jacayl iyo dadka iyo halka uu ka yimid darteed ayaa uu daawadaa muuqaal ugu dambeyn waxaan weydiin doonaa daahir su'aasha ugu dambeysay oo ah maxaad filanaysaa yani maxaad jeclaan lahayd haddii aad tegi lahayd Soomaaliya inaad aragto ama deegaanada Soomaaliya vous aimeriez quoi si en cas où vous retournez en Somaliland vous souhaitiez voir quoi? Seulement la tombe du prophète, la tombe de Cheikh. waxaan jeclaa buu inaan boqdo qabrigii Sheekh Isxaaq. هي انت سو كلمه Ce que je vais voir. intaan ugu jeclaa De inaan mes propres mains. indhahaygana ku soo arkaan jeclaa buu ma jiraan isaga cid kale ay walaalihiin daahir oo ku nool Madagascar oo Est-ce que vous avez des sœurs et des frères? Oh, beaucoup. way badan yihiin buu aad bay u badan yihiin aad bay u badan yihiin. iyaga ma ka sheekaysataan halka ka timaadeen inaad mar dib ugu noqotaan Est-ce que est-ce que vous parlez de là où vous venez avec vos sœurs et vos frères des fois lorsque vous discutez? Weimar. Oui. Ouais. ka sheekaystaan. daahir ugu dambeyn aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa aad baad mahadsantahay waqti fiican aad siisay Je vous remercie pour votre temps. muuqaalkana waxa uu gaari doonaa dad fara badan oo runtii aad u xiiseynaya Et il va partager cette vidéo avec beaucoup de gens partout au monde. Merci beaucoup. aad baad mahadsantahay. sidoo kale muuqaalkan wuxuu caddeynaya asxaabta kor xun dhammaan ayuu show in dal kastoo dunida laga helayo ugu yaraan 30 40 20 Soomaaliya haddii aanay kaba yaraan laakiin muhiimaddu ay tahay in Soomaalidu ay dunida aad u joogto runtii ismaba lahayn Madagascar markii ay tagay Soomaali baad ku arki doontaa hotelka waxaan ka buuqin karaystay internetka wax kasta imka Soomaali fara badan baa agteeda taagan